agoontii aabbayaashu ku dhinteen weeraradii xumaa waxaa ummadda Soomaaliyeed karaamo iyo sharaf u noqonaysa caruurtaas markay koraan iyo abaalka ay sheegan doonaan waxay la tahay inayna qabiil ku abaal sheegan doonin inayna dhihi doonin reer hebel baan ahay oo i koriyey inayna dhihi doonin jufadaasan ka soo jeedaa oo wax ii tartay waxaan qabaa haddaan dhalintan la sii dayn lahaa oo reerkooda lagu sii dayn lahaa qaarkood waxayna tusaayeen inayna tuseen oo maanta ayagoo cambaar leh ama injir gashay ama dhibaataysan ama jiran ay dhici lahayd agoonnimadu waa wax karaamo leh ilaahayna waa karaameeyey nabiguna waa karaameeyey nabi maxamed baa agoon ahaa isagaa agoonnimo ku soo koray wixii ka soo dambeeyey oo dhan oo agoon ana isagay ku abtirsanahayaan marka waxaan rajaynayaa in laga warqabo dhalintan si xooggan looga warqabo oo marmar aan loo imaanay mar kasta loo yimaado waxaan aad ugu mahadcelinayaa General Mukhtaar oo fikirkii lagu aasaasay maalintii la furahayay ayaan ka soo qayb galay fikirkii lagu aasaasay ee lagu dhisay meeshan iska lahaa iyo raggii kale oo kala qayb galayba qofka markuu mas'uuliyad qabto ama wuxuu noqonay wuu qabtay waana tagay ama wuxuu noqonay wuu qabtay waxaanuna ka tagay General Mukhtaar waxa muuqatay in ay muuqato wuxuu ka tagay ayna socon doonto muddo badan inay socon doonto ayaa muuqata waxaan rajaynaynaa qof kasta oo mas'uuliyad uu qabto in uu ku fakaro maxaad ka tagaysaa wax la barbaariyo oo la dhiso oo la xoojiyana waxa ugu weyn dadka bini aadankana waxay ka bilowdaan yaraantaasay ka bilowdaan markay yar yihiinna way xasuusanahayaan wixii loo galay annagu markaan yarayn waxaan sugi jirnay ciidaha waxaa noo imaan jirtay haddaan xasuusto prime ministerkii cabdirasaaq xaaji xuseen xaaskiisa mulaaxa in la dhihi jiray ila tahay iyo caasho cilmi mataan oo madaxweynaha xaaskiisa ahayd yacni mar kastoo ciid ay tahay waxay noo keeni jireen buskudyo aranjaato markaas jirta aranjaato la dhihi jiray iyo waxyaabo badan marka waa sugi jirnay ciidda waan sugi jirnay inay labadaas marwo noo yimaadaan waxaan rajaynaynaa marka madaxdu in ayna ayagu bas tegin inay marwooyinkoodana u tagaan ilmaha agoonta ay marwooyinkooda u diraan ayagu waa mashquulsan yihiin markayna mashquulsanayn inay marwooyinka tagaan sababtu marwadu waxay noqonaysaa qof lagu daydo anigu mulaaxo iyo caasho cilmi mataan ma iloobi karo marnaba anu ma aqaano inay markaas isdhahayeen reerkaasu ka soo jeeda ubaxa anay ii dhiibi jireen anaa hadli jiray marka sababtay igu dhiibi jireen ma garanayo laakiin mar kasta ubaxa anaa siin jiray maaragtay marka ra'iisul wasaare meeshani waxaa lagu dhisahayaa dadka la dhisahayo waa dad waxaa la dhisahayaa mustaqbalkii waddankan baa la dhisahayaa madaxdii waddankaana la dhisahayaa waxaa la dhisahayaa dadkii waddankan hogaamin doona waxaa dhici doonta dhalinyartan hadda waan weydiinay intaan la qadaynaynay maxaad rabtaa inaad noqotid mid wuxuu sheegtay boosku kugu haystaa oo prime minister baan rabaa buu dhahay midna waad arkaysaa xijaar buu ku haystoo janan baan rabaa buu dhahay hamigooda iyo himiladooda aad bay u sarraysaa marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay gaarsiiyo laakiin yoom min alayaam waxaan maqli doonaa ayagoo faanahaya oo dhahaya anigu waxaan ku soo koray agoontii ciidanka booliiska ayaan ahaa anagu waa ku faanaa bashiir goobe ayaa orfana ahaa waxaa orfana cali madoobe oo jananka booliiska noqday anigaa ah cabdishakuurkii la dilay baa ah maxamed faarax baa ah rag badan dad badan baa ah generaalada pilotska Soomaali dadkii ugu horeeyay oo dhan orfanay ahaayeen orfanay ka soo wada baxeen marka waxaan rajaynaynaa in la quursan oo la yaraysan tilaabadan prime minister ad qaaday ma aha waa maalin gelinkeed weyn laakiin xaqiiqada taariikhda ay ku reebayso dhalintaas yararka ah taariikhda ay ku reebayso iyo sheekada ay ku reebi doonto ma malin karaysa marka waxaan rajaynaynaa inaan ayadoo official laga dhigin marmarka qaarkood la iska yimaado ayadoon loo socon jimcada in lagala soo qayb galo sabtida in lagala ayadoon la iska socon loo sheegin inuu prime ministerka yimaado inuu madaxweynuhu yimaado inay wasiirada yimaadeen hal arrin baan idin sheegaa mas'uuliyadda waxay leedahay formonka markaan ahaa xerada orfanaan dhiganahay 15 mayna waan lug baan ka imaan jiray lug baan ku tagi jiray qadada marka waa la kala boobi waa la dhamaysanay 15 may baan ka noqonay xeradii waxaan tagnay oo qadadii la dhamaystay qadab ma haysatay waan soo marka nin la dhaho boon dheer deganaa muxuu ahaa ninkii shalay kula socday muxuu ahaa general adiyo ugaaski idin la socday omo
walaalkiis baa wasiirka noo qaabay wasiir ahaa marka wuxuuna ku jira meesha la soo waan soo noqday xeradii baan ka soo noqday anoo cara ah oo caraysan qado waan waayay anoo caraysan baan soo noqday albaabkii birtaan garaacay marka waa waqti la harsanayo oo ku garaacay wardihii baa dhahay maxaa tahay markaasaan u sheegay wasiirka waxaan idhi orfanaan ahay orfanaa ka imid inaan la hadlaan rabaa uu soo baxa isagoo hoosunta qaba waxaan ku yidhi anuu orfanaan ahay saaka hal rooti hal koob shaah kusoo quraac kale ma helin hadda waan noqday xeradii waa la boobay baan raashin baan rabnaa in raashinkeena meel la saaraan ku markaasuu dhahay bax waa kaa daba imaanay runtii anigu lug baan ku socdaa albaabka markaan kasii galay xerada orfan waa dekeday ka soo horjeedaa aan sii galahay moogi baabuurkiisii baa soo galay isagoo wata waa mas-uuliyad weyn wuxuu yeeray doctorkii maxaa dhacay ardadan qaaraan iskool dhigan baa jira oo boobahaya wuxuu dhahay ardadan marka hala tiriyo cuntadooda gaar ha loogu dhigo meel ha loogu dhigo waa mas-uuliyad weyn weligii ma iloobahay waan xasuusnaanayaa marka tilaabadan tilaabo wanaagsan weeye ardadan waan u hablayeynaynaa geeridu waa xaq waalidiintan waa dhinteen qof kastana wuu dhimanahayaa laakiin dal baad leedihiin iyo dad iyo qaran baad leedihiin idinka fakera idin korinahaya idin abaabin doona waxaana rajaynaynaa qaarkiin in ay noqdaan mas-uuliyiinta waddanka ugu sarreysa dhan kastaba waa mahadsantihiin waxa halkan lagu haayo waxa ugu khayrka badanne oo dunida lagu qabto inay tow nabigeenu tilmaamo salawaatullaahi wasalaamu calayh aayadaha qur-aanka waxaad ogtihiin ilaahay wuxuuna leeyahay wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan wa bidi lqurbaa maxaa ku xiga walyataama ku xigta qul maa anfaqtum min khayrin faliwaalidayni walaqrabiin walyataama nabigeena calayhi salaatu wasalaam asigoo ka hadlaaya fadliga ay leedahay in la kafaalo qaado agoonta caynkaana ee la barbaariyo wuxuu yidhi anaa wakaafilulyatiimayni anaa wakaafilulyatiimi ka haada fi ljanna aw ka haatayni fi ljanna labadiisa faradoo kale u tilmaamo sidaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam aniga iyo qofka kaafilulyatiimka ee yatiimka agoonka kafaalo qaada jannada irideeda sidaas baan ku galnaaha wuri labadaa farood inta yarta isu jirto intaas baan uga fakada wuri nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa xabiibu rabbilcaalamiin intii dunida ku nooleedoo naf la geliyey qofkii ugu khayrka badnaa waaye qofka sidaas dhahay daad nabi muxamed darajadi ku xigta aada noqotay maxaa ka khayr badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimiday saxaabi asigoo ka dacwoonaya in qasaawatul-qalbi ay ku dhacday oo qalbigiisa oo qalalay oo dikrigii ilaahayba marna uu xasuusa la-ya nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma doonaysaa in qalbigaagu uu qoyo oo mar waliba alla xasuusnaado subxaanahu wa tacaala qaala balaa yaa rasuul allah rasuulkii allow sidaas ayaanba kugu imaday intaas keliyahanba ka dacwo ka ahayaan doonaya inaan nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam irxam ilyatiima war yatiimka u naxariiso wamsax ra-sahu madaxiisana masaxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad ogsoon tihiin agoonka marka madaxiisa la masaxayo canuga kale sidaan loo masaxin baa loo masaxayaa canuga kale sidaana la leeyay asigana sidaan baa la leeyay waa naxariis inta tintaas aysan culaysar aysan dareemin darteed ayaa sidaas loogu naxariisan walidaalika waxaan leenahay walaalaha gacanta ku hayow iyo inta booliiska soomaaliyeed ee lacagtaasi ku tadawucday oo ku bixisayo jannadaas ayaad haysataane sidaas usii labalaaba ayaan leenahay waxaan leenahay ummadda muslimiinta ay meel kasta joogaan ee soomaaliyeed maaluka maa qadamta wa maalu gayrika maa akharta wuri nabigeena calayhi salaatu wasalaam hantida aada leedahay waxaad hormarsatay waaye hantida aadan lahaynna midda adiga aada hayso waaye wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaaha dhahay waxaad bixiso bedelkooda ilaahaba ku siinaya laba malag ay caligaaba eeg naqnaqanaye laba malag ayaa subax kasta qoraxdu soo baxaysaahe qoraxda labada dhinac kasoo kala baxayso mid wuxuu leeyahay allaahuma acdim mumsikan talafan ilaahu kan hantida ku dhegoo bakiilka ah ka baabi'i midka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdim munfiqan khalafan ilaahayow midka dhiiba bedelkeediio degdega soo siiyo leeyahay walidaalika waxaan rabnaa inaan ku tartanno sadaqadaas bixideeda waxaan rabnaa inaan ku tartanno wiilashaas iyo gabdhaha soomaaliyeed kafaaladooda inaan ku tartanno waa ubixii maanta waa mustaqbalkii berrito waa madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii iyo sheekhi weynaaye ummadda hogaaminaya iyo janankii berrito waa yatiimkii agoonkii maanta waay
abaal kale ayaynu leeyihiin wiilashaas iyo gabdhahaas ma ahan agoon la iska daryeelaya kaliya ma aha hooyo aabahood wuxuu u dhintay iyo in ka mid ah hooyadood waxay u geeriyoodeen difaaca dalkan ayay dhiigooda u horeen inaan xaruntan agoonta booliiskan soo booqdo oo aan indhahayga ku soo arko xaqiiqda iyo waxa ka jira halkan alxamdulillah wax badan aan hore u ogeyn oo kala duwan baahiyo kala duwan ayaan halkan ku arkay ilaah ayaa mahad leh oo noo gartay inaan halkan nimaano xaqiiqdaasna aan ogaano marka hore waxaan rabaa mahad inaan u jeediyo walaalkay cali xirsi cali gaab jazaaka allah ilaahay abaal ha kaa siiyo aabbaha xaruntan waxaan kaloo rabaa inaan mahad u celiyo generaal mukhtaar wasiirka arrimaha gudaha oo ah aasaasihii halkan ilaahay isna ajir ha ka siiyo waxaan rabaa tiimka ila socday inaan hal u taabto sababaha usoo watay iyo macnaha ku jiro waxaa ugu horeeyo walaalkay Tarzan safiirka Soomaaliya ee Kenya sababtan usoo watayna waxay ahayd inuu maanta ila yimaado halkan si uu indhihiisa ugu arko annagana noo dareensiiyo dhibka iyo nolosha uu ka soo maray agoonnimada waan ku mahadsantahay ambassador waxa kaloo ila socda taliyaha ciidamada oo ah xarunta aan booqanayno maanta oo halkan ah taliye xijaar wasiirka diinta iyo awqaafta oo isna ah wasiir aan u idmaday inuu naga hanuuniyo qalbiganana raxmad u taabsiiyo waxa kaloo ku xiga wasiiradda caafimaadka oo xaqiiqdii iyadana u soo watay hadday duruufo caafimaad halkan ka jirto inay sida dhaqsiyaha leh ay wax uga qabato waana amar warqadii waana loo keenay baahiyaha jiro oo xagga caafimaadka ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayayna uga qabanaysaa waa u idmay inay hawsha sida ugu dhaqsiyaha badan ugu qabato walaalkay wasiirka cadaaladda jaamac oo ah wasiirka sababtu ii soo raacay waxaa waaye in agoontii halkan abiyaashood lagu laayay cadaaladda inay helaan uu markhaati ka noqdo dhibka iyo calooyowga nahayo oo ay noo geysteen cadowgeena kala duwan mid guda iyo mid dabadba waxaa kaloo ila socdo walaalkay wasiir cabdullaahi wasiirka waxbarashada oo isna aan hadda faray inuu dhiso galaasyadaas laamiyeriga ama jiingada ah sida ugu dhaqsiyaha badan amarkaasna uu qaatay wuuna fulinaya hadduu alla idmo sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta taliyaha ku-xigeenka asxaabta dhammaan sidaas ayaan usoo watay dhammaantood wayna ku mahadsan yihiin haddaan usoo noqdo xadiiskii walaalkeen wasiirka diinta iyo waqaafka uu noo sheegay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii daryeela oo u naxariista agoonta inay jannada u siman yihiin waa wax muhiima waad garan kartaan qof agoon ah oo aabihiisa lahayn haddaayay uu calool xumaaday wasiirka isaga iyo Tarzan xaqiiqdii anna gudaha ayaan kusoo calool xumaaday gabar yar oo aan salaamayay markii aan salaamay inay tiri aabe waa wax la taaban karo waxaa kaloo xadiiskaas uu noo sheegayaa in uu noo sheegay walaalkeen ninkii nabigu yimid ee qalbiga adeega dareemay oo raxmadda ay ka suushay oo wax kasoo ka suulay inuu nabiga weydiiyey maxaa daawo noo ah waa run waaye daawada qalbi adeega dhammaanteen inta badanna waan qabnaa naxariista kaliya waxaan garanaa marka aan nimaano meesha laakiin marka aan ka fognahay ma dareeno sidaa darteed waxaan rabaa oo halkaan rabaa inaan ka faro shacbiga Soomaaliyeed oo halkaan iga daawanaya gudaha iyo dibadda inay usoo gargaaraan walaalahood iyo tiimka oo agoonta ah ee aabayaashooda iyagoo difaacayo annagana difaacayo qarankana difaacayo loo laayay oo maanta halkaan ku sugan inay wax usoo dhiibaan waxna u gartaan hadiyadna usoo diraan iyagoo usoo marsiinaya xarunta agoonta taliska ciidanka booliiska waa mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu